taageerayaasha Manchester United hambalyo shaqo fiican ay qabateen shaqadaas adinka ma qabsana kooxo kale u qabateen nimankii Liverpool ahay nimankii Chelsea ahay iyo Arsenal oo isdhahay City ama inaga soo daba kacda siiba Arsenal waxa isdhahay rijaalo kuwii soddon ay kula imaanayaan wax yar kadibna ayaga waxay burso doonaan Liverpool iyo Chelsea nimankii ma nagu soo noolaa raba anako shaki United ay qabatay bab waadish hadda si u faraxsan yihiin doqonya u jabi jira asleedahay kooxdii iska garaaci jiray horyaalka la iska saani lixda lagu dhufanay hadda waxay la taagan tahayba qatarana saanana shaqo ma qaban annaka shaqo noo qaban tan moogi adinka shaqo ma qabsan shaqo waxa ku qabsanina hadda shaqo qabsanaysiin Nottingham Forest guriga nuugu maad Nottingham Forest garaaci leeyahay guriga nuugu maad waa garaaci weysin City waxa uga badisay laba gool rigoora iyo gool tuuriya war waxaas ku faano hal mar horta mid ku faana macalinkan score u dhigay oo yani orta baalka itixaad ku badiyo kulankiisa u horeeyay oo macalinimada uu ka hortay koox darbiya taas ku faana laakiin kooxdan oo City bariyahan kooxdii u baxayso waxa waaye waa la iska dardarooya kooxda xataa waxa ku tashanay City miyaha waa ka badi karnaa yes ileeda kooxdii farxaysa City laftigeeda ciyaartooydeeda waxa niyada ka gashay in laga badi karo way baqayaan cabsiga ku beeran City ya baqayso cabsi ku beeran tahay hadda ani laftigeega waxa hayso baaqul boy iyo wasiir Shabalaasi iyo Captain Bare inta diyaarad u diro inaad dhokaalay Real City laga gashay akaalay garaac u baxa TikTok leeyahay xamar joogto Bilal Bushawina goalkeeper uga dhigo Bilal Bushawi goalkeeper qabo geesi balful Captain Bare dhaxda u qabo diisha baaqul ba hor istaag wasiir Shabalaasi garabka dhil Najib aadan Najib qoslaayay inta uu waco saasab iyo heesaba nimankan City ha ku faanina City ayada bariya iska jaban annaka baqeen waxa leeyahay ama igu soo kacda Liverpool hadda farxad halkaasay dhibci u yeelan waa farxsan yihiin United ninka ama Diallo ma laha horta ninkaas ciyaaryahan u soo baxay qatara mustaqbal fiican leh waay macalinkan xilliyada dambe wuxuu sameey doonaa ma ogin laakiin hadda Manchester jugjug meesha joog waa 13aad ahayd wali 13aad way nimanka hadda City lagu qabtan moogi ayay wax u soo korto male wax u soo kordhay malahan meeshoodii taagan bartay taagnaayeen farxadani waxaan yini wareerin kii Bruno Fernandes oo saan dhaay afar niyo ma dhufane waxaan ugu dhuftay laba hal afar waxa ku soo dhuftay macalinka kooxdiisi oo laba ciyaaryahan laga aqoon laba ciyaaryahan ma laga qaano Lisbon waxa ku soo dhuftay afar City waxa dishay Liverpool Brighton waxa iska garaacay Bournemouth City TikTok leed inuu balamiya haysata laakiin adinka United ahaan wali meeratiin meeshii joogtiin waxa yaala farxin Foos Manchester iga gaarsiiyay videogan Foos koox fiican way ahaa jirtay Soomaaliya say leexayad Afrika u dhahan adiga u ahaa jirtay koox fiican laakiin xilligan la joogo United waa United 10 sano ever nil atiin wax ataraysin mal maskooy 10 la galay wax ataraysin malahan United hadda booski 13aad joogta inay soo dhaqaaqdo ma malaysin booski 13aad ay ku ogeedeen hadda ka fiiriya saas u fiiriya ku laabta United meel uma socoto warkii aan ugu daalin meeshaas ay ka joogan City noo qabteen waa maasin hambaliya dhankaas ka leeyahay inay City noo qabteen hambaliya ni leeyahay wax kale ma soo kordhina ninkii Guardiola hayna Alvarez inuu iska dareemaayeen ba Alvarez wuu eeday Alvarez hadda waa kana Athletic Madrid badis wada hogaankii wax ka wada kulana u dhiman haday badis ayada qabsanayso Alvarez muhiim u ahay dhanka kale ninka Bruno City qurxiyo wuxuu ahaa jiray Rodri waa bal fahmay Rodri Bruno City qurux badan tak tahay illa ninka hay Rodri oo ayba Rodri muhiim weyn uu nimanka waxa lagu ogaaday City saddex nin isku dhufsan karta waa qaldama dubarana ogaadeen wuxuu iska yahay nin caadi garoonka illa nin asaas u furi jiray baash war yaan ugu daalinay dhanka kale Chelsea xalkeeda juuro waaye xalkeeda maadaama shanta kullu u dambeysay balisay 15 dhibcood halaha saaxiiba laakiin Chelsea macalinkeeda mar walba wuxuu dhahaa horyaalka mu tartameyn anaka title mu tartameyn macalinka wuxuu rabaa title mu tartameyn markuu dhahayo hando uu qaado waa soo rabay guul uu joogaa uu baashaala uu dabaldaga hadii laga qaadan wuxuu leeyahay ani horaan ugu sheegay marka waxa la alaabtan hordhac allahano wuxuu leeyahay ani koobka ma rabi taageerayaasha hadda xataa saas bilaaween
laakiin aniga waxaa ku aaminsanahay macalinka fikirkiisa qabaa koobkan Chelsea uma tartamayso sanadaha dambe ha tartamaan laakiin sanadkan ma tartamayso way fiicanta hadda guulay wadaa koray soo jirtaa aba way la yaabisin ay Arsenal ma tartamayso rijaalo waxa wadaa sheeko kale Chelsea xaqire Chelsea ma tartamayso no Chelsea waa fiican tahay way dadaaloosaa laakiin macalinkeedii wuxuu aaminsan 10 kulan u dambeeyana fiiriyo 10 kulan u dambeeyo Chelsea soo fiiriyo macalinka aaniyad ahaan aaminsan inay Chelsea tartami karto marka adima laga yeelay adima tartamay macalinkii dhahay ma tartamay adima dhahay waa tartama macalinka wuxuu ka wadaa kooxda tabar male laakiin hadii ii toosto waa saarib uu ka wadaa waa sida rabay uu ka wadaa Chelsea hadda waa soo dhawaatay Liverpool wuxuu jirtaa 2 dhibcood kulanka oo Hanka iyo gacanta ku haysto Liverpool iska dhaaf 2 dhibcood u jirtaa labadaas dhibcood muhiim u tahay Arsenal 6 laga koreeyaa Chelsea 4 ka koreysaa laakiin wali annaka Arsenal daananay ma quusan in kastoo la rabay ina Everton garaacno hadaan tusaa isbuucan kooxii waaweynay oo hogaamka ku tartamayay ama ku orday kulli waa wada qabsay hal moogi sida Chelsea oo kale Barcelona fiir Real fiir Bayern fiir Juventus fiir Milan in kastoo ay ku jiraan Juve kor inay aadaal rabay waxa Liverpool iyo Arsenal u soo laabo saasal isku dhigayaan kooxii asdeys korra u soo kacan waa celisa dhacay marka isbuucan isbuuc celis oo ay hal yaabinina nimankii Chelsea ah heerku korral iska baraysto marooyaan marka Chelsea waa arkayna meeshan aan ni fadhiya ani maraan ila hadli doona hadda Chelsea way fiican tahay rijaalo maxaa Chelsea ku dhaliilay war Chelsea macalinkeeda aaminsan Chelsea sanadaha dambe way ciyaartooy mustaqbal waa moogi hadda horyaalkan Chelsea hooshira ma ahan boxing day gaana ogaa doonaa ilaa January oo ku ogaa doonaa meeshaas kala baxa oo noqona kulamadan isku laalaabay iyo war macalinka kulamada dambe uu ka sii fikiraa xataa Ingiriiska meeshaas oo baxo Ingiriiska isbuucan Chelsea bisa ka badisay kooxaha kor soo jiro Nottingham Forest oo soo dhaqaaqay Tottenham waxay ayadana inkastoo Southampton bixis dhanka kale nimankii Barcelona ahay meel u socdaan malaha Real ayadoo la leeyahay inuu macalinkiisa u faraxsan yahay la leeyahay wallahi Real 3-3 gashay Barcelona dhaqaaq doonto kulan dheeraad dheelayso alla Gens ma la ka baday maalin waxa ka badayso Alves maalin waxa ka badayso meel u socoto hada marka laga baday iliga laga jibiyaa ilig bash ilig ciyaartooyda maalin olma laga jibi maanta farmin mid laga jibi marka Barcelona iyo saaxiibka Maxamed Kuudiisa تعبان واي معلن كان فكفكت هوري انا جلس هذا سلاه فكفكت هوري جعدي هوري وبرشلونه ودي ريال افر كله باير سود دي انت كان قراع مال الله يكسو دمات كان مال الله يكو دمانه marka Barcelona hadda liki Diego Simeone ka csan buu leeyahay Real kan labadan waaweyn inta isha lagu hayo ana dafaayo Alvarez iyo waxa keensaday iyo Galhareeri dada soo urursado taagiyaan ana qaadanayo warwariyaan ugu daalin soo dhawaadan leeyahay macalinka Chelsea fikirku qabaa la qabaa Chelsea Real kama u tartamayso United annaka noo daneysay City inaga celisay naga reebtay oo na dardar reebtay United meeshaas ku maasantiin laakiin adinka hool ma qabsanina Foos Manchester waan igu ogahay kooxaha fakfakta badan celiya laakiin adinka Nottingham Forest iyo luuqyada iyo Brighton iyo Bournemouth waxaan iska keen gargaraacan